dib u soo noqda aad iyo aad waan damiyey live horta waa damiyey because of shaqaan u dirin buu qabsanayay wireless iyo waxaan loo joogay buu soo qabsanayay marka network fiican baan haystaa telefoonka ku jiro ma sha Allah T-Mobile marka waa damiyey asagoo dhan damiyey live-kii dib ugu soo noqday marka khiyaar sharafta la sugaynaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo kaada islaantaan in la blog lagu qabanay darbaale I don't need qof ayto aad iyo aad waa ku caay kara laakiin kuma caay waan ku blog gareynaya aad iyo inta san kaaga reenaya soo dhawaada si share gareey idinku maasan live horeto waa dambiye waa tirtiri doona insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo sababtoo ah cilada dhinaca internetka oo uu aaday wireless mana rabin inuu wireless aado waxay diraan qadka marka horeto aan okay ka dhiga marka hadda waa saxay ma sha Allah raal noqdo dib u soo noqda si share gareeya gaarsiiya page kaleeto idinku maasan aad iyo aad waa sugaynaa daqiiqad iyo hal iyo laba sugaynaa intay dadka dib u soo noqonayaan aad iyo ayagoo kun iyo wax marayo ayaan daadiyay marka waan sugaynaa intay dib u soo noqonayaan waa waaskii waa waaskii duqbalow ahaa kablow faarax walaalkiis macowkii ka yaraa bashiir balla mataanaa xayso guru saaxiibkiis qarasho dariskiis ku noolaaw raawna garsheekuusa haaja bakaja lagti kaadi qofkana blog qaadada waa waaski duqbalow ahaa kablow faarax walaalkiis macowkii ka yaraa bashiir balla mataanaa xayso guru saaxiibkiis qarasho dariskiis ku noolaaw raawna garsheekuusa haaja bakaja lagti macana shuuriye banaaweyn shan taabaq qoray aadiya kun baan blog gareynaya kun kale oo muwaadiniin Soomaaliyeed baa ii soo xaadiraysan duqbalow aad iyo aad waa blog gareekii hooyada caayay aad iyo waa igu daalayso mugd aad iyo saaid bay u daaleen waa caytama blog ku qabta waa caytama blog warnikii fikirkiisa aniga fikirkay ka duwan ee bartaas ku xifaltamay aniga ma taabto waxna ma dham laakiin qof hooyo caayayo oo ardaa khaldan ka soo kacay blog bal u qor maalintan Facebook bilaabay 2017 ilaa hadda over 40,000 people wallahi been ma 40,000 over 50,000 people ay xirxir oo blog ugu xiraadiyay waa dictator baa tahay kule dictator mi qof walba oo saqajaare oo bahdil blog baa lagu qabanay xarig baa lagu xiriyaa waaweyn dhaq kun kala imaanayso oo magaraysa la dheerayaal aadiyay si share gareey idin kale si share gareeya hadalka waxaan bilaabayaa markii aad kun qof markaad isku xirtaan baan hadalka bilaabaya aadiya inta ka horeyso hadal ma bilaabayo waan si carcartamaya carcartankayga si wadaya aadiya si share gareeya gaarsiiya page kaleeto idinku maasan aadiyaad loo dhutin maayo habar yaroo caytantay oday yaroo caytamay insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo hal qodob oo xasaasi iyo qodob aan soo qorin oo very secret yaan rabaa inaan ka hadlo qodobkaas oo quseeyo ina mako xasan Cabdiraxmaan Cabdishakuur mucaaradka Soomaaliya aadiyaad hadal ka soo yeeray baan rabaa inaan sida ay tahay aan u gorfeeyo insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo ninka marka arko aad iyo aad baan ugu qoslo soo mogday wallahi been ma waraysi laga qaaday oo ay magaraysaa blog ku qabta ka raad iyo hadda ku isku xiraysaa wallahi inaan hadalka bilaabay ilaa 1k isku xirto ma bilaab waa tusaya fiir aad iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur baan daawarayay oo waraysi ka qaaday Universal wari Cabdixakiim Cabdixakiim horta waa nin siyaasadda inta badan kama hadlo waa wariyo shaqeeya TV Universal Universal TV na waa TV-da Soomaaliyeed kuwa codka dheer ama waafka dheer weeye inkastoo ay xasdaan Soomaalida qaarkood ay xasdaan oo ay magaraysaa siyaro iska saqajaanimo xasdan laakiin dayax soo baxay ama iftiin soo baxay sacabada lagu ma qarin karay horay Soomaali u tiriyaadiyad uu ku horeeya TV-da kale ee Soomaalida aad buu uga horeeya Cabdixakiim ma aqaano aqoon shakhsiyan anoo duqbalow isku malihin laakiin waa wariyo Soomaaliyeed wuxuu ka hadlaa inta badan arrimaha bulshada hooyooyinka caruurta laga qaato caruurta istoriyeyso ee dalka Ingiriiska ee mididii waxa isku dhufto iyo arrimaha adiga domestic ee xaafadaha ka dhaco iyo inta badan ka warama siyaasadda iyo madaxweynayaashana uu wareystaa waana qaabka wariyaasha magaraysaa aqoon-yahanada wax bartay ee saxaafadan iskuul uga soo baxay ay sameeyaan wayaadiya ma dhex taagnaadaan 12 maanta siyaasadda beeni propaganda ma soo gudbiyaan xasan sheekh maxamuud hadda koor waa wareystay waxaa kale wareystay madaxweynayaal horeeto maamul goboleedyada rag badan oo heavyweight oo siyaasadda Soomaaliya
magac ku dhaxle iyo wareystay wuxuuna u wareystaa sida dadka Soomaaliyeed ay dareemayaan uma wareysto sida wariyaasha ay title ka bixiyaan haddaan TV ba tagaya waxa la leeyahay title baa la isiinaya title kana anigu iska weli xaqna uma lihi title baa la isiinaya waxa leeyahay aqooyahan duqbirow oo magaranaysaay aqooyahan namihi magarataadiya muwaadin baa iska hay waxa la leeyahay aqooyahan ama la taliyihii horete ee madaxweynaha xasan sheekh maxamuud adiga title anigu aan lahayn yaa la ii xambaaranaya marka waxa weeye qaabka noocaas uma shaqeeyo cabdixakiim wareysiga uu ka qaaday ninka la yiraahdo cabdiraxmaan cabdishakuur aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxyaabo badan oo ummadda Soomaaliyeed ka guuxayay waxyaabo badan oo ummadda Soomaaliyeed ay dareensaneed baa magaranaysaa banaanka yimid ma sha Allah wareysi aad iyo aad u xiiso badan baa waa gali doona aniga hal qodob baan halka kaga dhaganaa qodobkaas aan dib ugu noqon doona insha Allah waxa idinka dhiman 1k 900 iyo waxaad maraysaan 220 adiga 80 qof ay ka artaadiya 80 qof markay buuxsanto baan bilaabaya hadalkayga insha Allah hadii la yiraahdo soo dhawaada si share gareeya si gudbiya khiyaarta ana hadayda tuuray khadka magaranaysaa iga xuma saa darteed baan marka live kor u tuuray oo aan qadkayga u hagaajiyay oo dib ugu soo noqday aad iyo waxa soddon bay idin kaartay waan idin sima weelaya intaana warbixinta galaadiyad waa waash duqbulo ahaa soo dhawaada khiyaarta sharafta leh ana idin tuuray khadkayga yar halaabay aad baad mahadsantiin dib u soo noqoteen ma sha Allah aad iyo waana sii share gareysaan sii gudbisaan aad iyo kuwa jalasiga waxaan Facebook ku arkay kunba gaartay raal noqda degdeg ba ku gaartay waxaan rabaa inaan hadal idinka gaarsiiyo dad badan ba social media ila waagi aan bilaabay 2017kii ila hadda 2019 2020 la garaayo dad badan ba aniga way yeesa jiray shakhsiyan anoo duqbulo aniga dadka bili aadanka ma yeesho waxyaabaha aan ku succeed gareeyay magaranaysaa ummadda Soomaaliyeed ama hooyooyinka Soomaaliyeed ama gabdhaha Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ee ii jecel yihiin waxa weeye waxa wanaagsan inta adigu isu heelin lahayd ama adigu dagaalad gal lahayd in horta shacabka ku heeliyaan social media markaan bilawnay dad badan oo aad u tiro badan bay ahaayeen waxa dhacday waxay dhijireen duqbulow lo'du boora because of wixii culture-kayga ahaa oo aan reewaamaha aan dhijirna anagu haddaan reewaamanahay reegubadanahay lo'daan boorna oo lo'da aan la boor caana ka imaanay yaay ka dhigeen oo magaranaysa waa culture ah wixii baan ka bedelay marka waxa yiri duqbulow anagu lo'da inaan boorno oo boorow oo magaranaysa aan akisno waxa weeye culture-kanaga because reewaamana aad waxay kale yiri ay dhijireen duqbulow waxa weeye af Soomaali ma yaqaano dhageysta af Soomaali ma yaqaano waa buju baja waa magaranaysa Oromo weeye adigu waa ismahadin jireen magaranaysa ama kun qof ama 500 ba daawanayso waxa uu ismahadin jireen waxay dhigi jireen magaranaysa aad iyo af Soomaaligiisa waa ka af Soomaali badana at the same adigu isku soo dub laakiin nin mabda lah baan ahaa oo wax ku taagan waxa aan ku taagnaana wuxuu ahaa inaan calanka Soomaaliyeed duuliyo waxa kale oo ku taagnaa wuxuu ahaa inaan dalkayga jeclaado inaan gudbiyo intaan anigu aaminsanahay marka ragii aniga iyo sijira ma dhijira Soomaali ma yaqaano ama sida macnaha qaar dawladda isla taageerayno qaar aan dawladda taageero oo farbadan bajir so ayagii islahaan kan ama duqbulow boorowga magaranaysaa lo'da booro oo magaranaysaa oromka ama waxba aan garanayn waxa way idinka ka af Soomaali badan oo ka nasabsantiin oo magaranaysaa ka laan dheeraysantiin oo adigu ma fiicno magaranaysaa waxyaabaha Mareykanka iyo Ingiriiska iyo European ku hormaraan waxa kamid ah in adigu is amaantid maaha in adigu isu hiilisid ma waana shacabka ku hiiliyaan way magaraataada waana shacabka ku hiiliyaan waana shacabka yiraahdaan no ninkan dagaal lagu ma qaadi karo sidii magaranaysaa ninkan dagaal lagu ma qaadi karo waa difaacina way yiraahdaan laakiin haddii aniga soo istaago oo aan laandheer dhalay oo saddex lugood ku taagan barta la istaago oo aan walaalkaygaas laga yaabo inaan wax yar dheerahay ama asiga fiicay oo yaso magaranaysaa dadku waxa weeye ay kiigood isticmaalayaan waxay leeyihiin واي نكان أما جروب كان نكان محي وبرسنايان أما ويسان مركو حنتمايان مركو حاوي هيلا هيليسا قريسا كاتير هيلا يعني بدل عايز تصدق مركو كون واد أفتر almost 1300 إلى إذا ما وليا ربي وكون قارتان هذيات مركو خيارتي أنا قريسا ليجي تفسوال ميقانية هوصل لوري وفيسبوك قارت نك وعايد بدن أما لو دقيقة هاي
oo aadiyad waxa arkaysa islaan ama ana waxaan isla sometimes iska daa fursada baxo bas joogto kumanaan kun hadda hadii live markaan ka baxno hadda berita ku soo noqotid 30 kun qof aa daawatay 2,000 ama 1,000 qof baa comment gareysay afartan moogi inta kaleeto waxa weeye waa caayisa xuleen kan waa noocan baal kaleeto waa sidan weeye waa noocan weeye adiga isku soo duub waxa halkaas kaga tageena 400 bal mareysaan ma sha Allah si share gareey si gudbiya insha Allah hadii ilaahay inta waxay gaad carcar iyo maaweelo oo idiisi sheekirey qodobka iyo barnaamijka aan u soo galay live ka saaka ama saacadan aad daawareysaan aan u soo galay baan ka hadli doonaa insha Allah hadii ilaahay mid kale YouTube aniga malihi ma soo galiyo fiidiyodan ka hadlo waxa qaato dhalinyaro Soomaaliyeed oo furbadan ba qaato lacagay wax ka sameeyaan qaarkood wixii door haga soo dhacaan ma sha Allah laakiin hal codsun baan mar walba gudbiya waraa sawir anigu aan yaranaco oo aadiyad oo yara fool xun hagelina ma garat sawir yaro qurux badan oo aniga marka YouTube magacay ku qoro oo aniga is daawanayo oo rabina is fiiriyo oo duqbilow soo galiyo sawir yaro nuuraya galiyo ma garat aadiyad oo aniga niyadii yar dhiso waana YouTube yara galishan oo arkoon oo maanta barnaamijka ka hadlo kuwaas gashteen ilaahumay 100 kun qof ku taawat ilaahumad kumanaan kun dollar keesh sawir yaro aniga yara qanciyo oo arko isa gurtu gowaade kuwi kale badidooda marka dhalinyartii social media soo galaysay sidaan oo kale to duqbilow shaqo ma aadaan inta badan waliin waxay u badan yihiin dadka Africa live ma soo galaan dadka Africa YouTube ka waxay ka garaysan dadka Europe joogo iyo magaraysaa iyo Mareykan aanu ba ka soo galaan oo way jira ku kala soo galo laakiin Mareykan anagu caansan baan u maleynaya aadiya YouTube kay wada aadeen because of irsaaqad bay ka raadinayaan YouTube hani ka hor hadda ka hor waan isku dayay waan idinku yiri waa galay hal bil baa waqti geliyay maalmo beerta soo galay magaraysaa ciwaan magaraysaa iyo adigu isxiijin fara badan YouTube shaan u sugayo islaha lacag badan ba ka soo galay ya video qaar waxa daawaday ilaa 200 oo kun oo qof ba daawatay adigu bil dhan oo dhawaaqay oo aan xiiqay oo cunahi qarxay baan 400 dollar soo direen waa xanaaq nervous baan noqday aad iyo aad baan nervous u noqday waxaan rabay 400 dollar waa waaliban ku yiri magaraysaa saaka hadda saacadan dhaqaaqay gaari ka xiisanayo anigu waa 2,300 dollar baan wadada ku soo dilay aad marka inta aan carba 1,500 bad mareysaan insha Allah hadii la yara barnaamijkayga baan gudagalaya waana ka hadlaya maanta aad uma saxmadeysni buuq badanna ma wada qayl badanna ma wada insha Allah hadii la yara muwaadiniinta Soomaaliyeed wadada wada dhalanay weey dadaan aad iyo aad wada dhalanay oo ayaga waan magac ku leeyahay oo ayaga isharfo ama kaycaay ha noqdo ama ka amaanay ha noqdo waa dad oo aan walaalkooda ha ayagana walaalahay yihiin ma sha Allah si kastoon soo waalo si kastoon magaraysaa qatar isaga dhigo si kastoon magaraysaa soo waalwaalo isaga dhigo magaraysaa qatar oo faraha ku socdo shoof aan u sameeyo stiil waxa iga dhigay waa dadkayga weeyadiyeed waa Soomaali Maxamed ma sha Allah halkaas aan kaga tagayaa waxaan ka hadlayaa arinta aan u soo galay live kan u soo galay ma sha Allah Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynihii horete ee Soomaaliya xafidullah yaas maalna weeto arigu duqbulo waa ku tufay qabiilkiisa kuma tufin laakiin inuu madaxweynihii hore ahaa oo uu ii dhaartay oo ummadda Soomaaliyeed u dhaartay yaan cunaha ku dagoon hiid ba gaarsiiyay Muqdisho dhan ba isla qaxday xaafad walba oo reerka uu ka dhashay xaafaddu ka soo jeedo oo dhan ba dhawaaqday aad iyo aad midaana waan arko ummadda Soomaaliyeed ku arkay haddana duqbilow live ku jiro ya dad laga yaabo xiga sheeg dad kale bood xidhi ogaadeen wax laga ma sheegin duqbilow baa lagu dhago wax laga sheeg ogaadeenna waa ogaadeen weeye hawiyana waa hawiye majarteena waa majarto marka Soomaalida inta badan waxa isaga khaldan oo isaga dhaxyaacsan oo aad iyo aad isaga dhax firarsan waxa weeye shakhsiga siyaasiga markii la dhaliilo oo wax laga sheego oo dhaliishiisa ama ha lagu tufo ama ha lagu dhago ama noocay noqoto ha noqoto asaga wax laga sheego asaga lagu dhagay asaga cunaha la qabsaday asaa magaraysaa la baqiijiyay reerka uu ka dhashay waxba laga sheego marka dibka Soomaalida hadda inay haysto waxa weeye Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo madaxweynihii Soomaaliya ahaa yaa daliilaysa oo wax ka sheegay daanta ku tufaysa sida meel dhawtaan ugu tufay aan ugu dhaganaa aan u lahaa Shariif afguduud cunaha ugu dhaganaa aad iyo aad ugu dhaganaa waxa weeye dad baaboodo waxay yiraahdeen reer hebel wax laga sheego
reer hebel iyo qabiil iyo cid iyo jifo iyo dad ba wax laga sheeg kulay macnaha jifadii hadii reerka ku dhashay abgaal cusmaan aad soo fariiso tiro abgaal waa tuugo ama waa noocan ama yaa qofku wax buu abgaal buu wax ka sheegay aad laakiin hadii sheekh shariif til soo fariiso leeyahay waa tuug dhaartay afguduudan waxa way qoryo wadan jiray isbaaro raba dadkan u dhigto dad baa way bedelayaan waxa way way twist gareynaya hadalkii waxay leeyihiin duqbilow maanta live soo fariistay wuxuu wax ka sheegay abgaal cusmaan waxa isaga khaldan abgaal cusmaan oo imaam leh oo sheekh leh oo sharaf leh oo aqoonyahan leh reerka Soomaaliya ugu la dheereysan ilaahay ka dhigay iyo ninkan siyaasiga danta raadinaya kursiga iyo magaca raadinaya yaa isaga khaldan marka waa u kala saaro waxaan ku yiri war siyaasadu dan joogto iyo saaxiib joogto mala ma garatay saaxiib joogto mala siyaasadu sheekh shariif ka shalay ku dhagreen inaanu duqbilow ku dhagraa in afguula bari wax arka saaro afiyeenkiisa balligiis halkeeda nugish inay dadka soo lagtaraan aan bixinayo iyo casharada aan bixinayo kamid sheekh shariif kan maanta ku dhagraa ee dhikarka kugu dhacay eedu maleynaysa reerkiini cidiina iyo dadkiini inaan wax ka sheegado maleys bari waxa arki ila waxa waa siyaasad aniga asaga toos ka wacli bari waa ka hadda ka war shalay baan ku dhagraa dad baa bixnahay magaraysa bixnahay oo cunaha kala go'ay oo magaraysa meel laga saro iyo meel sakiin laga mariyo ay jir maxay ku leeyin abgaal buu wax laga sheegay war abgaal cusmaan ilaahay baa la dheera ka dhigay shakhsina waxba kama sheegi karo cidna wax kama sheegi karto waa dadka bartaa gobolada shabeellaha iyo gobolada dhexe iyo muqdisho ilaahay ku beero laan dheerayaasha ka dhigo maxoogooda cunayo qanafiil daran ku haya way laakiin siyaasiga sheekh shariif magaraysaa dan raadiska kursi raadiska magaraysaa magac raadiska rooga gududan in loo dhiga raadsanayo haddii wax laga sheego ma aha in reerkii wax laga sheego boqol jeer baan idinku celceliyoon idinku yiri war jooga war ka jooga sheekh shariifkii shalayta aniga aan ku dhagaraa balligiisha siyaasadda inaysan saaxiib joogtee iyo howlo kale iyo qabiilkan iyo dadkan aad ka hadlaysaan ay saleen badiisha labadii maalin la soo dhaafay dad baa qoraaladan akhrinay soo commentiyada soo qoriyeen baan akhrinay laba maalin saddex ka hor baa soo galaan oo indhaha intaan soo guduudsaday laandheer iska dhigay shariif afguduudow cunahan kugu dhagayna xawar baad rabtaa inaad noocan ka dhigtid xawar baad saa u galaysa xawar baad dildil rabtaa waa dhaarti way because of siyaasaddaas aniguna social media dad baa qaraac haddana daraato waa la heshiiyey ma garan karaan meel lagu heshiiyey iyo meel la isugu ma fahmi karaan waa siyaasad weyn laba socdaan sheekh shariif yani naftirkiisu dan ugu taa laba socdaan hadalkeedu sii gali ma detailka waxay arkaa shalaano hadar leh xafidullah mudane xafidullah madaxweyne xasan sheekh shariif sheekh axmed radiyallahu anhu ana ku hayarka kuwii qabiilkii wax laga sheegay aaminsanaa ee kuwii qabiilka yaa soo wada gal waxay ku leeyihiin shalay baad ku tufaysi waa siyaasi weeye waa xil maxaad ogtahay xilal balan qaaday inuu madaxweynihii Soomaaliya ee soo socdo yahay in maxaad ogtahay waxa moog laakiin waxaan rabaa inaan education ku baroon ku kala sheego war qabiilku waa qabiil ugaas buu leeyahay dhaqan buu leeyahay geedka hoostiisa iyo talada ka goodaa sheekh shariif kan iyo duqbilowgan iyo farmaajahan iyo waxaan aad arkaysid waa rag wada magac doon iyo kursi doone oo wada roog gududan raadinayo madaxweyne kale dhaha wada raadinayo way boqol jeer baan ku celcelinaya sheekh shariif leeshi aa ku qabiilka aamis aa ku afka xamburta ka keenay ee daalana ee reer kanagiyo ciidanadiyay soo baxay baq aawe xagee sheekh shariif bari oo arbaca ana ku sheegayo hadda live soo galay ka war hadda ana live soo galo ku sheegay waa ka maanta ana amaanaya sheekh shariif ka war waa madaxweynaheegii weey wallahi inana beenahay madaxweynaheegii weeye sharaf buu inaga mudan yahay cizi buu inaga mudan yahay siyaasadda ku sheegay intaada ku dawaqminooda ku wal yaa ku sheegon ku bari shalay anaga ku dhaganeen diyaaradaha ma garanaysa yaa la aad yaa la maantana waa barinta roog gududan ba madaxtooyada loo dhigo bari soo arbaca ma roog gududan ba loo dhigayaa neef geelay ba loo qalayaa waxa weeye sawir la qoslayaa la galayaa laan dheerayaal ma garanaysa xabadka la isgelinayaa aniguna waana maani ka war أنا دقبلوه social media activist دولة الصومالية تاجر إن الله عنك تاجر دي دولة الصومالية تاجر بريوانا ماني شيخ شريف أديو تادي عمبرتو كده إيشي يا كاجر عمبرتو كده إيشي إيه والله إيه أرضي
ee dhawaaqay bal maxaad sameen kaayso ila 10 baro soo galay maan maxaad sameen waayahay أنا كاحية بريتو أنا كاحية شيخ شريف بريتو محاد سبعين وحمي سمينيش because of وضوخسنت هاي وقولان تو حال كهير كأنه جارسي وحاوي وحن أبهدلنا عالم أبهدلنا وحاوي كفير سلعانتا وحن أبهدلنا هاي هو على النين قريها ولوردين قبيل كلوردين وحاوي قبيل كيبا نتري قبيلك حتى سيد الله قلت لك ما استعمال سيد الله قلت لك قبيلك إن الله استعمال قبيلك وما استعمال سيك قاب درنا وبهدل يا قبيلك استعمال شيخ شريف شيخ أحمد من حوالي الصوماليات بها وادارتي رومي أنا الضبروي يا برتن سوقر عناهم كلك دي كربة دي كرتي دي كركي وحمالة دي كرتي دل يدبت بماشى جوكتين دل يدبت بمال الله لماشى كسك ندان يا دي كر دي كرتي قيلبة دي كيرسي كور قيلبة دي كيرسي واد دواغدان واد وذا أويسان واد وذا برورتين حضرنا أنا أمانة يا كور حضرنا شيخ شريف كي عن شيء تكون جرا ثم والله كوي ما أنت نوع مدحوريجي شرف بيجا مذيعي عز بيجا مذيعي وينقرب تاجرهاي بالروا كفر حيا شور كيسان بونبونيا إركا ساجيريا هوذا ساجيريا أديو كالي مرك وحي أنكو شيء يصرون مع مرك وحي أنكو شيء أن كلها ور أديو دنت وحي كوجدرته دنت وحي كوجدرته المها جو سكول هذا أديو دنت وحي كوجدرته إن النبات كنولات أديو دنت وحي كوجدرته إن هذا نوضدا إسبار الله قرديان أديو دنت وحي كوجدرته إن قبض هذه ويل كاجا سن نبات اللي قروا يكسر قران تاسي دنت كوجدرته سكوبر عليه ياس إذا عادي السوشيال ميديا شيء قرع لكوهي بري واحد عارك هيقعد در قرع كلكوهي بري تيفيرس سو بري 4 ما بري سو 4 ما سو خير يا فرماج يا مقرس الشيخ شريف يا حسن الشيخ محمد بري وكل مدوران بل هو هذا الشلع عمبرت الشيخ كيري إلا الله بري تصوب على الله بري تعرق واي هاي بل بري دعوة بل عرق بقول جرب كل شيء عالم كواحد نور دامو إيه إن عروت النادي سكول جيش إنه واحد نور دامو إيه إن عندها كلاس إنه واحد نور دامو إيه إن نبات كنا ولا إنه واحد نور دامو والله بيسجلين بكوير it's true والريالة تقبض برو برتنو سفريسته أذيان عقول شيخ شريف شيخ أحمد إيه حسبي هذا مضشة بريتنا مدحونا أنك شرفت له أميرك ومضى الصومالي دي بريلا كل مدوران هدو إلى هنا ولا قدين ولا الدعيسن وحلقات عشان شيء ضل كان يومضني على كان وكم ذوب لها إهر لو جس الله وحلقات عشان سيدي ومضن صوماليات دجال كسكير الرجالي سيدي الرجال يتوقع عشان إلا وضل كان نجي ضد كان نجي يندلني يانا بابين أهروا الصعون لقات عشان لكن أديو فرشريف وحلاق شيء لكن أديو فرماجة وحلاق شيء قبيل بوا وحلاق شيء ولا سورد قبا إلا حتى وما تريشت قرقاقي ويالكاق وما تريش هذه كور والريالة التقوى يضبلوا بروح حلقة لسه فريشت ولا أنا برين إن شاء الله دولار بريتي وحكل مدونه مدن محمد عبد الله فرماجة يمدحوينها الأديو ووجه على هاي والشيخ شريف شيخ أحمد حفظ الله مدحوريكم ميلجار كان نجس ساري مدحوري الشباب مقدسة كساري لبادي يكون يكوي يتمكي مدحوري دقبله وجوه الرئي واركو إن الصارو شيخ شريف شيخ أحمد يا بريتو مدحوريها ومضى الصومالية لا كل بطوره وحو إنه شاقي دونا وح وناكسن أو قروح بدن أيو إنه شاقي دونا كور هاي هذه وضوق ما لنا ديكرا كودعو ما ترى فرح واي هاي ما ترى فرح أو فرحد ملا مرتهل واي مرك سياسة صاحب جوكت ملا بخل جرب اللغوشة جاي بخل جرب الدقيستي لقاعد سكتر ترير كنجيو عدة النضية قبيل كنجيو قويس كنجيو برا راسي كترت آذية مركا شيخ شريف شيخ أحمد إن شاء الله هدول هذا حفظ الله ومدحوينها النجي شرف بالنجم ذي عز بالنجم ذي ما أنتو خلطمه ما دام أن دولدن حقوق ودنيين تدولدن العشرة عنا ونكون لقينا ما أنتو فرحد وح وروح بدن والشيخ شريف ناشق وان أمانينا وان دورينا
cirkaasaan keenaynaa sharaftiisaa bannaanka la keeni maalinta uu dhaarto ee uu inoo dhaarto ee thuma wallaahi u yidhaahdana waan ku dhegaynaa waxaa weeye halkaasaan soo fariisanaynaa adiga iyo kuwa qabiilkaa misan baan dhiigkar idinku rido sokor baan idinku rido ka war sokor baan idinku rido dhiigkar baan idinku rido maalinta wanaag samayna berri tifsaan waa maalin doon soo fariiso بريد صبحي إن شاء الله هدو إلهي هذا هل كان بيسوي فريسن سيدان أو أمان الدورو إن عركة أو جين دورو إن وصل دوين دورو إن سوردي سوبون بون دور هذه ميل حراق مركواي ما إلا يصدروا قبيل السود لارتا ما يريروا كلا فوقادا برتا ما إلا يصبر سوا برتا هذه مر والبوي حقول يسوي حاوي ويلك عالك قرب يالو شيخ شريف عالك قرب يالو ضبرو عالك قرب يالو فرماج عالك قرب يالو شيخ حسن شيخ محمد عالك قرب يالو أحمدو كي وحا قرب يالا كيا وحو صعدا نيروبي وصعدا وحا حوين قبل قلو هذه محاسب من مركواي إلا رمبا كان الله هذا وداوري ساي واد دقيساني سوادنا إيجو دايديغا داركي ساي شيخ شريف كشالي كنت فيان ما تباري واي because maanta wax dadkan iyo calankan darwe iyo maanta ka talinaya wana maani waa madaxweynahaygi ay ma mudno sharaf buu mudan yahay cizi buu mudan yahay waa runtay way runta ka hadla maalinta uu woolood iyo qabiil iyo wax la yimaadana waa lagu tufi cunaha lagu dhagi anoo xanaaqsan baa soo gali gees u yaala soo gali waxa way labada intaan miciya ka gisto yan dhiiga ka nuugo alla fariisan hayaadi maxasuman maalin reerkanaga wax laga sheegay maalin reerkanaga la amaanay haya hadda Sheekh Shariif bana amaanayay reerkiina la amaanay waayahay hadda madaxweynihii ugu horeeyay ee aan dalka Soomaaliya dhasaaro Sheekh Shariif Sheekh Ahmed Xafidullah yaan maanta munaag ka sheegaya reerkiina miyaa amaanay marka waayahay ma cidiina amaanay waayahay maya ma amaan cidiin ma amaanin ma amaanay waa madaxweynihii وأميركي شلي تمدحوينها هي هاوي شلي مركو خلدمين ودادن كنتو سنيني روتا لو شيغي هيدكا غارسيني ما ترى وكفر حينيا ما ترى وكفر حينيا وحنو شيغيا انو يahay madaxweynahaygi inuu yahay magaraysaa madaxweynihii dalka Soomaaliya inaan jecelnahay inaan garab taaganahay yanu sheegay man hayam reerkiina amaana marka way orod daaro TV-da guriga ka sheeyto xaatra hadar duqbalo reerkana waa amaana ma amaanin reerkiina الشيخ شريف شيخ أحمد ومدحوينه يقورته ومالين دويته نارتي يا هذا وناجي في علاتي وانقاذني وين هالشيني نبض بانون هاي إركا سانجيرنا روج جودن بانون دقينا وانا مانينا مدحان صارنا وانكسر دويننا ميرو البيتو أديات بالميرو كستوكسر دويننا يجمع حكت هذا عندنا كم حكت كبر لكن هذا وجهك يكون كاجي شلي عبرت أفكار ككيري يتي شلي عبرت أفكار كتي بحات سبين مركز سياسة وكبرين ولا وتشيء بريت مركز لكن مدح ذي وذا قص ليسو ضل كان أسوة شقيسي أو شرف له أو مجرد ساي شاربها دول كقول حرتي أو ساعة مجرد شاربها أمري جري هذا بحسب يعني سمر مركز حلقة سكايتك مدن الشيخ شريف شيخ أحمد مدن مدحوينها النجيبات هاي أنا وكمان نعين سبيشلي أنا طبلو مدحويني أوري Soomaaliya aan indhaha saaray baatay indhaha aan saaray oon arkay wallahi oo billaah atlaa Minneapolis maalinta timid shaqadii dhan baan of ka soo qaatay leenki dheeraa ee jaamacadan galay 2 saacadood baan soo lugeynay leen ku jiro oo ilaa iridda ka gaaray waa ka xumahay in maanta iyo daraadii shalay daraadii kore aan kugu dhagalaa oo cunaha kugu dhagay waa ka raalgelay qoraalna waa soo qor hadda waa ka raalgelay mar walba wanaag noo sheegtid mudanaha annagii baa tahay madaxweynaha annagii baa tahay waan ku garab taagana qabiilku ma nacayay qabiilku ma nacay qabiilna kuma bursanay laakiin dhaartii iyo buuqii iyo qaylidii rajo yar baan nagashay rajada yar waxay tahay in dawladnimo iyo calanka sharaftiisi iyo cizigiisi soo yarno وأيوه روح نركض جد مدحوينه ديارات مقرر يساعد اللي سكبه دلو مدحوينه سجوده مدحوينه مقرر يساعد العاية هذا واحد دولة نوجع الله الشيخ شريف وحاوي إن مقرر يساعد مدح دي دلك الصومالية لبريا يو كينيا بريا يسو ولا ده إلى كل السيا مدحوينها الصومالية إن مراكن كي اللي هي وركارية إلى كل السيا مدحوينها الصومالية كو يوروب جوجو إلى رئيس الوزراء هنجي شرفيا وحان كانوا نارك إن أديجي ويجد مدحوينها الشيخ شريف أديجي رئيس الوزراء هو يسكت الجناجرتين والسبورسنجرتين كامبالا كودن إثيوبيا لوجه شيء وحيوان نعش مغل هذا وحان مغلا مدحوني رئيس الوزراء استقاله وريجي مارك وحيوان دولة كوج على عرورتي تهريب ياشي بلا كحرة أول صوت دايما ناركنا لا ميلا لسه يناركنا مجال ذي هو تفكير ماله تحنداوري الشريفة هوتيل نمان تركيا ديستانو لقيت الشيء مقدسه و very very high class
oo magaraysaay Mareykan iyo Yurub ku yaal xataa Nairobi aan kuul oo Muqdisho laga dhisan taawanay online ka daan gala maanta inaan ka reservation ka samaysan karo hotelka aan dagayo iyo meesha u socdo Muqdisho inay maanta hormartay waagi adiga hadda aad madaxweynaha eeda ninka kale madaxweynaha madaxda iyo dadka wadanka u soo safray Nairobi hotel ka bukin gareysan kare dhaqaalihii dalka loogu talgalo dhan Nairobi gal jir hadda dalka naga dhaqaalihii galayaadiya marka dawladda waxaan ku jeclaanay ee la'aanta aan ugu taageersanay ee aan magaraysa u garab taagan waxyaabaha kamid markana waxa intaan dib uga noqono sharaf darro nagu dhacdo oo magaraysa bahdilaad ugu noqoto Sheekh Shariif uu doori meen madaxweyne adna ku jecelnahay bari hadaad madaxweynaha noo noqoto oo nimankan tay baxaan adiga soo noqoto wali sharaftii ciisiga ku weynaa waxa weeye ina wax ka wanaagsan aan gaarsiinaysid baan aaminsan laakiin hada thuma wallahi meelan la soo istaagtid oo thuma wallahi qayli meela yaas afbaad wax ka tirana qorib soo qaadan afbaana ku karbaashay naadiyaad afba lagu karbaashi afba cunaa kugu dhagayna waxa weeye cidna ka dhicinayso hadda adduunyada way isbedeshay Sheekh Shariif runta ku sheeg xoolo ma ku sir baxaya maanta adduunyada way isbedeshay adduunyada waagi idaacadaha kali ay shaqeyn jireen ma hadda dadku waa daaleen dawladnimo rabaan dalkooda dhismay rabaan social media Facebook live waxa la soo baxay special net duqbulow dhahan oo last 3 years dawladda iska garab taagnaa wallahi shil lacag ma siiso shil lacag $1 dawladda ma siiso idinku waxa mataan oo tirada duqbulow waa mishaari lacag iyo waxba la siiyaa ka balshi wallahi inuu farmaajo shil lacag ay siinin khayrana shil lacag ay siinin dawladda iyo wasaaradaha kala duwan shil lacag ay siinin لكن نشقيشته ودلكيس يعيديس عريس جعل برا ولا اللي عنوان حتى وير يلا يقول سوق هذا أنا مريك جو وير بالي يقول سوق هذا لا يبرصدي مقرسة اللي دبقت دي مقرسة أرض اللي يبرص وان كل حوان هذه حتى قبيل كان كتنا شيء بيش وقاعدين أو فرماجية الدولة دي وحي كورتب يندقال سكوكان أو اسمه صلا أنا مقرسة هذه اسمه صلا أنا لويري دي غلابة تايو دولة دي ورهرك إني قد يد مكسن سويش تاج وردلك يجا وحول بكوي دقيش دلك أنا بقول يستون دلك يجوا كوين ملأ قبيل دوني ماي أوف بكوير وذروا هداد أرض الراعة كيام بكويريو بحر أحمد مدود دبقر أنا نمحي سويش تاج نمط ينول هذيت فرماجان جعلنا خير رجع وحنكو جعلنا وكل شيء دي بقول نقول ما بريل هذي وهداد أنت سكول نوكي ورئيس الوزراء لا تقال من أو واحد ونكسر وروح بدل نوش وتري هذه ضيع حاسة دي جارسيني ساس كلهم بكون تاجيرهم أنا هذا مواطنين الصوماليين ودل كانوا هلا يان دل كله قلت مركز هذيك كوا أبقى حمبرة فكينان وده وأبقى لدك أكسدان أحمد ورا كوا كلا حمبرتك كينان أو خيرنا كوا مرصدة أفك حمبرتك كينان أو فرماجنا كوا مرحارة أفك حمبرتك كينان يا دل كله قلت يوم بدين هذه وين هلا مشكل وين هلا رجل يرى ودل كان جعل وين هلاوي هذه والله بين ما شيخ شريف هذا ما كون جعل لي مدح وحوي كاركاج إنه ما كش على أرمي كل شيء دقيس waxaan aragno oo ani waan qarqarnayo oo dadku dhaarkaan ba ku sheegay mudana madaxweyne saa sharaf u leed oo lagu ciiseynay oo lagu sharfay oo dadka ku jeclaan umba xasan qoslay xasan maxamuud wallahi ka masir wallahi baan isku kindiray wallahi baan isku kindiraynin isku diridnay gabaha hool kalena kama wad campaign kalena kuma jiro xasan maxamuud waa ninka kugu tafiyay waa ninka idaacadaha yimaad oranjir ninka badu bixi waa ninka naga dhaadhiciyay wallahi baan ma نكى نجد أدعية ناشجة أنتوا إذا عدي من نقوله شخص شريف بدقته وأنا أقول له ونقلت شخص شريف واحد بدقته تمام أنا ما كي يكون بكل دقيقة وسجد الجريرة ومنشر دقيش أنا عايز كوه إنه قربها يمريكان يدمدها يجريس اللي جالس ودوينه لوجوسه بجرس وذا جد ولا سعد هالمربى وحاي ما توش حاسق محمود مهضلي عرفك هذا القذف ومدة كلها بليش هل كانوا فريستاء وقصله dadkii uu ka hor keenon magarasadiya dadkii uu ku fariista uu qosli markuu hadlana wuxuu dhihi dawladda dastuuri waxa loo joogo kaan adigu dalaq mikrofoonku ku dhiibay wallahi baan dadkii qurbiyo oo dhan iyo dadkii gudaha joogay iyo meel buuxleen war Sheekh Shariif waa nin wanaagsan adba way ku soo gaartay xantaadu ma moognido xantaadu waa la socotaa dadkii dhan waxay leeyihiin war Sheekh Shariif waa nin wanaagsan waa nin ahlu diine waa nin magarasay lacag wallahi dad siyaasiyiin oo dhageysano shay ninkan xataa lacag ma jecel yiraan والله بين ما الشيخ شريف يقول له حتى شيل العقب بجعل والله عركس كاي ولي حتى العقب وكامبين كوكر لا 3 ييرز وكامبين شيل العقب اتشيش عرب العقب مسيسو كينيا العقب مسيسو امارات العقب مسيسو وينو شغن مقرسه الهي درتي مقرسه ضد ومصور اسكسو دكسام بل مقرسه وانا من انت ودن مقرسه شرفتها لغو هي عزقها لغو هي كرامتها لغو نينا عشق محمد بخونيون
انتو ميكروفون كودي بفريسه وقصلوا ايوه حالات ثم والله بان ما odayaashii dadkii aqoonyahanada dadkii siyaasiyiinta xulay war shariif nin xun maaha magaranaysaa waa nin wanaagsan waa nin ehel diin waa nin u qalbo dalka inuu hayo waa nin magaranaysaa Soomaalinimada u wanaagsan waa dadkii dama noo sheegayaan ninka ku gubay ee kaarkaaga qoray ee qos fiir sawirada ma daawad sawirada la soo dhigay video la soo muxuu kugu qoslay mar walba maalinta shirka jiraa'id qabatay ee madaxweynaha waxba ma ogo waa runta hadheysay farmaajo waxba ma ogo oo waxaan maxay madaxweynaha waxba ogo ay wadiisu uu kugu qoslay حتى هو كشرف ودي فير واحد سيريس بعد شركة جرائد وقبريشن سيريس أو الدولة دي كل ليلسن أو معارض نما يا إنه يدو هاد ليسن عشان أنتو هاس فيري يا الميرو قف يرو لقو عيارة يا لا بهدله يكوكو قصلا سيجي جاني مركي كذا عشان تاجين أنتو قصلا أنتو يريبا مركي تقول دي السؤال عشان تقول ورك علي حاسة يا دل كانوا جبت مركي وهذا لو كشرفوه كعزيه ودو وردل كنت مدحوينها هيو وقصر كجدال كان يكتو هذا كله كفتمين لكن ناشنال تي في او إذن هاي او ميري سوماليين ويكو قصر دات كيو حلو ورني كان محا خلط وزي حجرا هذا أنا مالي تدبيتها لي واتي مالت الديارات يو مقرش هاي يو كان صدر كوكو قصلي هذا ثم والله كوكو هوست قصله كان والله الشيخ شريف وين دلي والله الشيخ شريف كاركيس وين قبي والله الشيخ شريف واعيبي فيري نو وسوق تافر سنه ودولار رسمي ايوه حيدنا انا مسكحديد الى شيء قبل الصوماليين مسكحدوا الى الشيء هويك الصوماليين أغلقودي شرفتودي إلى الشيء ضدك الصوماليين شرفتيد يهوشت مرك هذا دم على هذا الهوش وكسر نغني إن شاء الله الدولار واحد دب ونغن منه وأنا كنت جعلنا هاي وحبي سكار كاجي يحقن شيخ شريف 2012 مدحوني ما وردي حاسق محمود بكاقات 2017 بدر وردي فرماجة كاقات this time supposed to be هذا serious وقعته هذا الشيء مقرسة حسنا وكو قصلو مقرسة تيكا هكذا وحسنا مقرسة we still love you we still need you still نسون نقطة وربنا هذه فيديو مال والله في كسر نقول يجريسها يا والله داعد باتا والله وبالله طلع الشيخ شريف قف كعد عسى والله نوصل الصومال السومري sababtaan u bedelay oo waxaan u bedelno oo hawshan u galay inaad madaxweynihii iyo hawshan la isu yimaado aan gartaa u galay baan ku sheeg video waxaan daawaday jaamacadda Oxford ka qudbeynaysa sida daacadda ah ay u hadashay ya wallahi بدش مش كحيل نبدش ونقول دولة كده شريف على كل مكور هذه على كل مو سوى نفسها لولا فريستو مدحونا هلا عزيز كور نقد ده واحد ببرص الشخص حسق محمد أمبر برصنا كور كاسا قصل كان كجو جنها ويادي وحكوا قصل مركا تري ديارات وحيسوع وزارة الرماه دبده يدلك مريك وواجه أوباما مدحونا هيلاري كلينتون وزارة الرماه دبده يسوي ستيت ديبارتمنت إن ضاعتها دتك الصوماليين دم بتوسي قف ضاعده وحقرنين عقدت قبين أو والله دل كان قف ضاعد ببهاي جرسه الله يهلو هل إلا بي صدق ولا جهله تري لا يساوي عيبه وحلوي فيري إن ضاعتها أو مدحوينة ضاعده وهذا وقت جدا عندنا الله بهنا دل كان ومدح بنانه هذا دولار رسمي ويجي دولاركم الجارك ويرعيش هذا الدولار الرسمي لستو وح بدن قبل لهاد بنا مثلا الشباب كسر له دلك وح بدن هجاج لها وحبس ده عندنا هذا وح أنا جيسوجي تاكوشي مركا تري والله يساوي ومدحوني قرري وسد عاد ورماته والله بن يجري والله يساوي وزارة الرماه الدبدة أمريكا يساوي وحلوير هيلاري كلينتون مياد لا كل ميسا هابان كو يري باتريسيان رجال بيتك صومالي ugu soo dhaweeyo هابان يري باتري hadana والله يساوي حلوير مقدسو أمنيgeeda ma wanaagsan ma qartaan madaxweynayaasha dhigis ma qartaan way diidir amni weeyaan kan weeyaan ayadoo qarxaya ka dhacay madaxweynuhu horeeyay qirtay meeshu joogo inay amni la'aan ahayd oo dagaal ka socdo wali uu hardamayo ninka ugu horeeyay dhageysh oo la soo waco lagu yiri Hillary Clinton ma la kulay sahaabka kaas lagu yiri batiri xamar amni ma hotel degan ma leh Nairobi mugu imaanaysa haaban ku yiri bat ma garanaysa aadiya sida cadnimo oo kal iyo laabiyo umada Soomaaliya warad marka Nairobi maadana waa li yimid batiri waxa lagu yiri naagta Hillary Clinton la yiraahdo gacanta miyaad ku salaamaysa gaasaan ku yiri ha waan ku salaamayaa batiri dhageysh عروكا مدحوينها قرط مدحوين الصومالي صومري أو عروكاس ومد الصومالي توري ما سوى وقرتي أو دا عندنا ومد وقرت عروكا هاي قرتان ما قرن كلام
بقرص ها وانكو سلام يا قعنتا كو سلام يا وتر ما شاء الله بس waxaa tira dar mar labaad baa la igu soo noqday oo laga xaqiijinayo lagu wariga gacanta miyaad ku salaamaysaa mar labaad Hillary Clinton markaas aad tiri ha gacanta waa mar labaad waan ku salaamaya oo laga xaqiijinayo tiri aad iyo arka xaqirtan ceeb ma garanaysa boqolaal ba xabadkay geliyaan ma wada aragto ma wala markay salaam gacanta soo qabtaanay salaam maxaa taa gacanta because way u soo qaadaya baalin walba wasiirada iyo madaxweynayaasha dalka Soomaaliya Xasan Maxamed asagoo hag siinayo oo Hillary Clinton ku dhagan soo gacmaha haystaan oo kor u tag boqol jarba maxaa taa gacantaada maxaa ka dhigay garanaysa because of daacada wata runta sheegayo xaqiiqda sheegayo oo garanaysa aad iyo xaqiiqdu sheegay marka insha Allah berita si wanaagsan baa lagu soo dhaweyn anigana garabkaaga aan insha Allah hadii la yiraahdo qoraalna waan ku soo qoray daraato oo ku weere madaxweyne Cafis dheeraad baan ku weydiisanayaa sababta dawladdan anaga taqbalo dawladda Soomaaliya hadda jirta hadaa adigu hadda madaxweyne noqotinta Soomaaliya wada ilaa inta hooyada Soomaaliyeed ilinta laga tiray inta walaalaha Soomaaliyeed ee lagu bahdilayo magafiyaasha ku bahdilayaan Liibiya inta caalamka in bahdilayo inta magaraysaaya Soomaali ay sharafta ka soo noqonayso ballan ma ku qaato waan ku dhaartay Ilaahay hortiis ban ka qaataan ku yiri Ilaahay min adeerka imaad Ilaahay mu isaaq iyo hawiye iyo raxweer iyo daarood mid ku doona madaxweynada inaan dalkayga iyo dawladdeeda iyo calankayga garabsa aaron care عدي دون تاي ودعدو عدي دون تاتي مادو بريت سنين هويه مت مدحوينها دان قسوم ku garab istaag illa ciilka laga baxay umada Soomaaliya waa su'aalahay weydiiraya way ilaahay nin daarood ba tahay ninka daarood markuu yimaado tahay may daaroodka wala kala bixi habar gidrisi xaq waado mursadan xaq waado abgaal xaq yaloog daaroodka loo kala bixi nin ogaadeero absamaanay isma absamay iyo dawladda ismaar karaan isku dhagay Axmedow ay wada raaceen dirgax bay ciyaarayaan barraqi kismaay ku jira wadarat aniguna dawladii baan siga dhiganay aaron keer فرماجينو مريحان خيرينو مرصديه وحبيغا مقل maxaan kaliya arka in sharafta calankayga iyo dawladnimadeedu ay soo noqoto oo Soomaaliya sharaf yeelato iyo ciz yeelato hooyada Soomaaliyeed hadaan afkayga ku ciil bixin karoon dawladnimada wanaageeda ugu sheeg karo ay runta ogaanayso xaqiiqda ogaanayso inaan ku tagar arka bari Ilaahay waxba kama har hal sana kaare madaxweyne Sheekh Shariifo adoo waxbay siinin cidna xishimka waraaqabat inaan dawladda garabs inta hooyada Soomaaliyeed ee ciilana ciil ka bixiso wallahi ana beenay waxay jeclaysiiyeen dawladnimada aan u jeclahay in qabiil ugu cararaan ku sheegsado waa daawanaysa madaxweyne wallahi wa billahi tallahi maalintu dagaalka dhacay dhowr sano jir xerada qaxootiga ee dhadhaab la yiraahdo ee xerada ugu weyn qaxootiga caalamka ugu weyn yaan ku koron degaraano Soomaaliya dalkayga dagaal sokay ka soo qaxay sababtan qabiil u nacabahay kuwa maanta ogaadeeriya absaba sheeganaya ex joogay qabiilka barra because of dad dharagsan bay hayeen waagayade anoo siigad duufaan u kacayso xerada qaxootiga joogno oo inta galeyna bayna siisa oo galey 15 cishaba ee leedahay kaalay galey qaat ya hooyada aabahay la daala dhacayno iskuul yaro xalana jagaasiya la yiraahdo ifuku yar yaan dhigan jiray oo dhigi dadka intee yimaada qabiilka hadlaytaan ka hadlay laan dheera dhalay oo ogaadeere oo Maxamed Suweero Ree Cabdillah ta dadabna mad gaari kari ka waran dagays wallahi ana beenayn Sheekh Shariifo waxa li dhigi waxaan maqli jiroona laan dheera dhalay oo ogaadeere oo Maxamed Suweere oo Reer Cabdillah oo Khair Cabdillah tahay baa lagu dhigi garaysa wallahi intay basra aan reerka naga iyo dadka naga intaysan dhadhaab oo niman ogaadeen degan yihiin oo NFD dad ogaadeen leeyihiin intay baabuur qaataan wallahi bay sidii dhadhaab fikir you know why adoome ba halka fadhiyo kibanda la weydiinayo la hora leeta kitambulish fiir leeta kitambulish ya lagu hayo laag intii la qaraaco ya wewe garaysa leeta kitambulish la ka san weydiin jiro waxa la war hadaan anagu laan dheeranahay oo niman Maxamed Suweeranahay oo ogaadeennahay maxaa doontan meesha nagu qabata ilmo yar baan hadhiis ilmo yar yaan weydiinay kula war laan dheernimadii qabiilka sheegis muxuu adoonkan idin celinaya soo dhulkan ogaadeen ma laha soo waxan qabiilka sheegisaan iyo waxa sheegaysa ma laha maxaa muxuu adoonkan dhadhaab joogo ee kukuuyada mukaambada ee laga keenay Rift Valley laga keenay adoo nin laan dheero ogaadeere oo dhulkaaga joogo muxuu kibanda ku weydiinaya because aan weydiin jiro waxa la war hadaan anagu laan dheeranahay oo aan Maxamed Suweernahay oo ogaadeennahay dadka ugu badannahay maxaan siigadan iyo xeradan ugu jira maxaa Shaarukhan iyo Mintum iyo riwaayadaha Ajakis iyo Jari maxay daaraha ugu jiraan baan jira dagays waxyaalaha aan yar iswid qof walba Soomaali inuu isweydiyo loo baahay war qabiil meel ku geenayo male meel ku gaarsiinayo male meel wallahi oo billaah tala ku geenayo male because aan jir waa Shaarukhan iyo Mintum
iyo jakis iyo jeeri waay ay rawaadaha u jilyaano qatar ugu jira kasal jiri ka waa reexamar jeeri jakis waa reexamar mintum yiki kala tara waa hindi adiguna ogaadee maxaa aan ogaadee oo laan dheer ilaahay ka dhig maxaa siigadan iyo galeydan iyo qaxootigan ugu jira isweydiin jiray إلا لانديران هاي ما نيروبي يا ميراد وقي يا مراكك يندقون شاروخ أنا كلا ندارسنا هذا أو أجاكسنا كلا ندارسنا ونسوي ديري وأنا المير مقرش موادك السمانية تاس بالغرب حتى كان قبيل كشجاني إنك تكون شيء برعجو هورج على كدش قاعد جسنا ما أنت وح عنيشن بحشو قرحش محي إساق بحوطري هاي إساق واللاندير يا ورج على اللاندير يا وقرر سوال لان يبقبق يقين محي أطرش وحاول بطرش وقاعد جسنا على صفريا ده اللاندير لماذا وحاكو سيف سبرك واي هورج على تاي اللاندير تاي برعد دكتور الله ساكو قرحش وحاكو سيس وحاكو وسيرش maxay ku tari marka laan dheernimo wax ku tari waxa weey markaan soo baxo markii ma waxa arkay dad abi saddexaad kaliya ku abtirsanay shaqaysanay noloshiisa raasanayo qof walba nabadgelyo haysto fiinaan haysto magaraysaay ma sha Allah laan dheernimadu maxay warbiiji ku soo galmay qoya wallahi been ma maxaa laan dheer ku tahay Europe iyo America dalkan hormaray wadamada hormar maxay laan dheer ku yihiin waxay laan dheer ku yihiin war shaqo nooc ka shaqaysaa how education nooceebada haystaa jaaga ku soo galo waa sidee حاجة كسوقل إد قادتي وإنتاوي قولي إنه عدة قطع سيدات وشقيستها داس ولا نرمن ما حد قرا كرنت كاد ودتي كرنت كارك أيست ميغا كوجدت لا ندر ويل عدانا من دبلوغله يا ميت سومالي هو أذياد مكرس كلا ندر سرو بقول كرنت كاري يسقف عني سود وتو وكل كعسل تركس وما شهر مركب حلو جاروي لكن لا ندر على بيجا هلكا قرحيس مقرسه قبيلك وحوكم الشيء وتكون بهدليسا فيري تكون باب بإنيسا النق السجديس شيخ شريف والله واحد أنا قال دولدن يضلكن يجعليش والله بالله طلع إننا بينهم لما تصل مية من السداد يتوصلوا يحرق حوتي نحتاجنا يبان سوسي قيال أو ضيال ميل جوجو علان بين سوسي نقولها يوين محيو إحنا نصيص يوين تنقليد نسينش محي نصينش من السيان كونوا قاعدين كلان ديرها شجرة إنه لا يباه خلال منوك هنا قلي يبر يسندي ما ينوك هنا روي لان ديرنا قد كان كسلة ما لان دير بحوية بحوية لان دير وككعوي قف لان ديرها وكعلن كامشن وكمقرر ساي دل كيس امشن وكجاز كيسين والصبح امشن وكنبت قليدي امشن وكدولد نمدي امشن وي هذه والله أنا نبيناهين شريف بركة الدولة دي أنا قلت هاسا يجعليش والله أنا نبيناهين مقالة من يابلس الدقرة هاي بقولك مش ديت تدك النجا ماشي الدقرة يسكرر كنا وحيود التاجرسين أحمد مذوب مقرسة قفل بحليه ورني وقد يدر هيركي إنه محاكا قاعدة تحيز مدعونا حق يدر هيركي إنه كقاضي ما هيركي إنه تاجرتي ما هيركي إنه قلنا عمليشت ما هيركي إنه برشتت كان مدحونها ماشي كفرماجلي هذا ومريحان هيركي إنه دولان كوي هاي عدي إنه دجال كودا كسمايو إذا كقاعدنا يا ما هيركي إنه تاجرت وهيركي إنه مقرزة قرب استاكتي ليه وافيريا كذا أول ما قلت إلا هذيك أنت هذا عرق هالصبح ما قلت أنت كير هيركي إنه دولان وبلغوها هاي يا دفاعي سيادة كدفاعي دفاعي شيء واحد برسلش حاجة كبحنا كلها ده كلام بس قدر تأي دفاع مع الله وردل كان وانو الاسماوي ودل كان وين الهلاوي ولل إيه قبل الدل كان أكعو يستاق وين الهلاو مقرر ساي سؤال لقد حلاوي مقرر ساديت وين إيماني إن شاء الله ودل يدي بنا كنت هاجرنا يس تقبلوا ما أنت ديك ملو ريركي دي وكتكي تقبلوا وساوي عدي ذو بتها غيره وكبح ذي ونوعا وسكسيدا وحاضر لكن مد حقيقة واحد هاي وحاول وندي وحقول السنة على كي وندي وحقول السنة الدولة دمدا الصومالي فرماجو وتج بري وتج خير رسمة بري وتج ويل كلاو الصوماليات وهذا اللي قرني إنه أقول له والله هين يا بري مدحوينك إنه وصلت يبركت. Do we know who is the next president of Somalia? Do we know next president أما prime minister كالصومالية ميان لصعنا هذا قفكية إلهي مبوك إلهي جينا أنتي مبوك نوبرنوس أديك عايتمايو أديك رواقي إنا تاي ميان لصعتها مي شريت ميان كون فكرين 2016 مركي هيد لبادي يكون يلحي توانكي ميان كون فكرين إن خير الله ده يا برايم مينستر نقونية no ميان كون فكرين إن فرماجو أو برايم مينستر كورتين الصومالية يا مقرر ساي مدحوينة إنه نقونية ميا إنت كون فكرين شمالي سيديو كلا توي هذا 2020 بنقلنا 2021 who is the next president of Somalia nobody knows
Who is the next prime minister of Somalia? Nobody knows. Ilahi umbao. Like institution ka inodison iyo dawladnimada hadda inoo sameysmayso waanan garab istaagnaa oo aan taageernaa oo aan duulinaa oo aan u helinaa oo qabiil ka tagnaa waraa mid walba qabiil baad ku Puntland buu difaacaya mid Jubaland buu difaacaya mid Hirshabelle buu difaacaya mid gudoomiyaha gobolka Banaadir buu difaacaya mid wuxuu difaacaya Somaliland waa Soomaali 14 milyan baan mid ba reer buu dabada geli daq بورما ميد وحاسكار برسيس كدفاع ميد بيت ما هداد كاش رحوين الدفاع هداد قرب ميد مجرتين الدفاع هداد كشمايكا ميد وقادير الدفاع هداد عابط ميد مرة هداد جارك ميد أبقال ور إلهي أمر كيسو بدنا وردال كان يداد كان أنا يا إسكالي أو إلهي المسؤول إنه قدك هنكاغو هاكورو هاوين هذا وعلى كاشي هاكو دقي إسكدا على كان قبيل كي غير كله كب حادية أنت هو جواوي مدحوني قال لا مدحوني دولة والله وبالله والله ما إله ما كنت أرتين أنا $1 هل دولار والله نوصل فرماجو إيه خير $1 ولقي والله بس حوالنا يسون لجن ما الله يسون مرة أنا كقادن والله ما كنت أرت ما إله ما كنت أرت لكن واحد عن تاجر وأنت يرى وقبيل كذا أنا تاجرين شخصيات دي قف كيهين بت لكن انت وراك جيرة ايه قبطانة ايه سميان ايه قلبي يذكوها انتين وحاوي اني انستيتوشن ايه الريفورم دولده يكو سميان يعني ديسان عالمك وحوير ان دب وصو النقون يكو تاقيرا اذيا هدان قبيل امسان هيا كو تاقيرا ايه دقبلو امسين وقبيلته والله وبالله وطلع احمدو ان تاقير لها كسمايا وحال يقوسو دوين لها سيدي فنانك إلك عصوادر تسمم جيبت يهوبيها وتي الرارك المادروديش بقرسها لان ديرياش يقرب وردينا واه بقرسها يلا يسود وين لك اسمعي كنت قال لها انا تكنيك كرك صارن سيده داهر على سوق لته عداده ما انت وتغي حافيو ولاش ساعه كالمادروديش وسو دويره تاغيده كرك صار يا سو دوالها قف والبو جعليه الا بونبونيو بينبانيه وفانا وجعليه لكن انا waxaan ku faanay waxaawi inay Soomaaliya ay sharafteedii soo noqdo inay Soomaaliya calankeedii iyo karaamadeedii intay soo noqoto adduunyada sharaf inaan ku faano I'm proud to be a Somali baana gabadha orod Olombikada ku jirtay ordayso waa Soomaali madaxweynahaasi waa former president Sheikh Sharif madaxweynaha waa madaxweynahayga wasiirkayga arrimaha dibadda way wasiirkayga gaashaandhigga way wasiirka inaan ku faano institutionka dibadda ani waan proud ku noqdo muxuu tiri Axmed Madoobe mise dani muxuu tiri aniga marka maanta qabiil aan ku raacoon dhaho hebel wadani waa majarteennima ku raacoon madaxtooyada marka taga mid kale oo majarteen ka sii hooseeyo oo Umar Maxamuud bayga xigsan aniga cali Salawaan iyo fiqiya dhulbaanti iyo warsageli banaanku inoo tuuraya garaysaa ishaan dhiga ka yaa ka soo xigsan dadkii Soomaaliyeed ka soo xigsan hoos markii loo tago mid kale to jifadiisa hadda sii qaad waxaan maalmo baad arkaysaa waxaan u duqbalow ka hadlay every single day waad u jeedaa waxaad arkaysid way وواحد أركي سيد وجديد والله وبالله طلع أنا لقى جنب الشيء جنوي أيضا الشيء تايد ولي كوسين دقيرت وتكوس يردشة لقيس لكن هذه أنا بذهلنا ووضن كنا وهجاجو وعن شرف يا السيد أمريكان كا يوروبيان كا دل كان ينقول دقيرة كيا سيد إثيوبيان كا أمبرار كنا قرر دل كنا أمني شقة أبورات لقيس هذه أمني أنا هلنا والدولة ده نوها جاكتو إنستيوشن كنا نوها نقول بشقة بيزنس بوسمشر مشاريع على صدق مجرس وحياة عروضها السكول بيت نبتقلي ده وحرمر اللي جوجاره لكن هديها غير كان نجوا حلقوا مصر من غير هذا درونت على السوشيال ماذا حين مركا أنا جو دولة دنيك كوري ماذا والله إن الآن بتاجر سنة إلهم عندهم النقد نين إنستوش كان واحد اسمه خوف كوري ماذا أفهم ما كجعل بحر مركو وراك سمعنا أفهم ما كو أمانة هدرن من العقبة الشيخ شريف هذا ماذا يصير كامنا رب العك كامنا قاعد لكن مدحوليه يجيبها تاي حدي هذا مدة هذا وقراودي حدي هذا مدة هذا ونحذي وكسود ويرنا إن شاء الله هدي ولا هذا مواد كاجي أنا هاي شعب كاجانا كم بده هاي ورجعنا وتقولي السن أنا ونقول السن دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.